ilaahay oo naxariisto qaraxii liida waxa ka dhacay dad badan baa laakiin ku mashquulsan xagee madaxdii ku maqneed waxa hubaalaha laakiin inay madaxdu TV ka wada daawanaysay qaraxa live una la socotay second by second marba talaabada la qaadayo sida qaraxu u dhici doontaba Soomaali kale ma ahay Carbaha Kuwaitigii Turkidii Mareykankii Ingiriiskii qof walbo danaha Soomaaliya dana kale uu daawanayay miiskaas uu ka fadhiyay sigaar iyo champagne iyo lacag ayaa lagu dul xisaabsanayay wali banaan dad badan baa la yaaban United Nations say warqad u soo dhigi kartaa xalanay oo oran kartaa yaashin la shaqo tagin say ku ogaan kartaa haddii aad laakiin videoga xagga hoose ku yaala aad daawatay ama daawanba oo hadda daawanaysi waxaad ogaanaysaa inaan maalin hore soo galiyo videoga markii hubka la soo galinayo inay dawladda Soomaaliya ka codsatayba United Nations iyo caalamka iyo beesha adduunkaba inaysan qolooydan Afrikaanka kumeelgaarka ciidanka aysan ka noqon kana laaban waayo wadanka halis buu ku jiraa terroristiga iyo al-shabaabka waa soo xoogeysanayaan waxaan oo dhan waxay bilaabmatay markii Soomaaliland iyadu badda saxeexday in Ethiopia qeybna ka sii doonto waa isla wareysiga iyo saxiixa ka bacdi sida jeebka ugu jiraan al-shabaabku gaaladan ayaa markiiba la hadlayna ku dhahay maxaad ka qabtiin al-shabaabow inay Soomaaliland badda siin doonto Ethiopia al-shabaabna waxay balan qaaday maalintaas inay dagaal adag la qaadi doonto oo san meesha si fudud Ethiopia u gacan galeen terrorist iyo qarax walba bilaabmi doonana waxaan waxa weey taxano socdo oo adduunka oo dhan ba la socdo adiga uun baa u haysta inay Soomaalidu gacanta ku haysato wadankoodii oo kolba talaabo walba wax ka dhaca meeshaas weydiinaysi xagee ka timina waxaan gacan sara laga wadaa waa bishii 24 ay United Nations soo qorisay inay Soomaaliya dhibaatada ku soo badnaan doonto loona baahnaan doono gargaarkii adduunka cid walba ogaanaan xaaladda waxa ka dhici doonta meesha waxaan wax cusub maaha United Nations iyo Europe ayaa lagu go'aamiyay waxa Soomaaliya ka dhacaya sanado ka hor bilo ka hor ay la soo cilaamiyaan loo sheegan adduunka ina waxaan la soo dejinayo waa tarajo iyo tabaqo iyo jaranjaro lagu go'aaminayo wax walba adigu laakiin waxaad ka harisaa maalinta doorasho jirto oo ku hubsatay kaliya inuu madaxweynahaagu noqdo nin reerkaaga hadduu noqdana afkaad buuraysa 4 sano dambe waxdana saanaka wadanka xukuna waxana wada la yaabaysa markay dhacaan haddii laga guuleystana madaxdaana waxa oranaysa anaku dawladdan waan ka soo horjeednaa ayaga wax walba qarax walba u sababa laakiinse wadanimo kama tiida waxa tahay qabiili oo ugu talagalay wadanka inaad reerkaaga fadhiisisi qaraxa iyo dhibaatadana aad waxba ka ogeen kana xukumin dalka sidaas awgeedna loo baahay inaad runta isku sheegtiin xarakaadkana waxa weeye wax la wada ogaa oo markii horeba dawladda bishii shanaad ee ka codsatayba ama saddexaad ba etri waxaan u baahanay inay ciidamadan kumeelgaarka inala sii joogaan admiska oona waliba hadda la ficil tusayo ina hadda 30kii bisha wixii la yiri inay dib u sii fikiraan noqoshada maadaama meeshu halis tahay waati hubka la soo gelinay maalintii dhaweeto oo la hayaa keena waxan haddana waa tan qaraxa maanta waayo 30ka bisha markay gaadho bisha 9 ilaa iyo badh ciidamada inay laabtaan laga saaro wadanka weyn bisha 12aad 31keedan waa inay dhamaantoodba la baxaan laakiinse tan ayaa sabab looga dhigay inay ku sii joogaan dalka waxaan waa strategic lagu dhigayo in maalka iyo dhaqaalaha meesha la qodanayo macdanta Afrika laga guranayo geeska Afrika fadhida dhex jeefta badii Red Sea oo hadda loo bixiyo golfkii ayaa iska dhex hurdaa oo leedahay meesha ku dhex dhaanteena ku dhex niikinaya xalan shaah ka cabaya laakiinse waxaad ogaataa inaad Afrikada la mid tahay oo adigana iyo Soomaalida dhanba loo baahnay in dad ku noolaadaan xitaa la awoodo in la wada laayo maadaama meesha macdan taalo macdantaas baa la guranaya Europe tan iyo Mareykanka maadaama macdan oolin waxa loo baahay dad shaqeeya oo canshuurta saas ku soo ururisay dawladdu ay ku shaqeynayso waxaan ay ka shaqeynayaan waxa weeye shirkadaha iyo farsamadan iyo sistemada iyo softwareadan lagu golanayo macdanta Afrika ka jirta waxa tahay duqsi umada hor taagan oo na fikireen oo la yaabo wax walba oo dhacaya haddaan ku soo laabanana sawirkan goorma u dambeysay inay al-shabaab qarxisa dawlad nin ka shaqeeya ama nin Turkiya ama nin Qatariya ama nin Mareykana wax qaraxa kama jirto xaga waxa ugu dambeysay markii dawladda farmaajo laagtii la dilaayay oo loo hanjabay dawladda laha awood baan ku haysan adiga xataa hadda maqli weydii laakiinse waxa hadda la soo qoray United Nations waxa halis ku jirta kaliya xarumaha dawladda iyo hadgadaarada iyo shacabka waayo dawladda iyagu ma aha hadda targetka ama lagu ma cadeysna waxa la tusayaa kaliya adduunka inay ciidankan al-shabaabku halis ku yihiin sida awgeedna shacabka dilayaan laakiin haddii dawladda loo cadeysnaan lahaa dawladda la qarxin lahaa iyo shacabka iyo shaqaalaha dawladda marka walaalayaal wadankaas oranayna in kaas ka leh wadankan dad qabiili ahaan baad u doorateen oo meesha u fadhiisiseen qabiilkana markuu meesha fadhiisto wuxuu dhex gelayaa system oo anaka Soomaalida noo wanaagsaneen democratic iyo 40 sano iyo nama anfacayso Afrika anfacay hadda wax anfacayso Asia anfacay hadda wax anfacayso markuu meesha galo wuxuu fahmayaa systemka oo markii hore waba la soo xushay wuxuu noqonaysaa inuu naftiisa calooshiisa u shaqeysto
dictatorka ninka kritaliska ayaa laga yaabaa markuu xilka qabanayo inuu reerkiisa iyo qabiilkiisa u naas nuujiyo siday ula dadaalaan uu hadhowna markuu uu xilka ku hubsado ka qaato wixii wanaagsanaa oo dhan wax yar u reebo laakiinse nin 4 sano joogaya ama xasan sheekh ahaado ama farmaajo ahaado muxuu u qabtay reerkiisa ma inuu dhowr xil siiyo iyo administration ka shaqeeyaan macdan iyo meesha waxaa la guranayaa mustaqbalkii Soomaaliya oo dhan carab baa iska shaqeysanaysa turki baa iska shaqeysanaysa markaasaad leedahay idinkuna al-shabaab yaa weeraraya may dowladda ogaato waxaa ku filan kaliya haddii la rabo in la ogaado inaa hadda telecommunicationka la baaro telefoonkii ninkii isqarxinaya groupkooda cidda la hadleen lacagaha ayaa ka heleen meeshay marayeen ninkii taxiga soo qaadayay kamaradii laga sawiro waa easy waa la heli karaa maraykanka iyo israa'iil waxay ku dilaan hub nin telefoonka markuu qabto iiraaniyana meeshii joogo lagu ridaayo Tora Bora miyaa meeshii Afghanistan ha buurihii ay lagala soo dhex baxay Bin Laden Libya lagala soo dhex baxay Gaddafi Iraq baa lagala soo dhex baxay god hostii Saddam Hussein markaas leedahay ilama yaryadii al-shabaab yar oo maalin walba TV-ga hordaagan oo ku hadlaya khadkii Soomaaliya telefoonka oo isticmaalaya lacagaha Soomaaliya telecommunication-ka GPS-ka ayaa la heli kareena riwaayadan ka dhex toosa joojiye qabyaaladana